maamulaha shirkadda daabacaadda boorarka ee Alpha Printer ee magaalada Garowe Axmed Maxamed Maxamuud oo la hadlayay warbaahinta ganacsiga Soomaaliyeed ee Somali Business ayaa ka warbixiyay higsiga shirkadda ee 2021 iyo waxyaabaha ay macaamiishooda u soo kordhiyeen sanadkan cusub. gobolada kale waxa ku leenahay agensiyo Garowe laakiin waxa ku yaala main campuska shirkadda xafiiskeeda weyn iyo production ilaa 3 gaaraya agensiyahaas baa ka jawaaba baahiyaha customerada ay uga baahan yihiin gobolada ay joogaan. sanadka 2021 qorshayaal wanaagsan ayaa soo kordhinay haday noqon lahayd printing service-kii oo aan kor u qaadnay quality-googii mashiino cusub waxa weeye aanu keensanay si baahida bulshada kor loogu qaado iyo waxyaabo cusub oo aan dabcan u soo siyaadinay macaamiisha noocyadooda kala duwan. waxa ku boorinaya inay booqdaan xafiiska cid kasta oo ganacsigeeda xayeysiisanaysa dabcan waxay ka heli doonaan qiimo dhimis aad iyo aad u hooseysa u sareysa sidoo kaleeto adeegooda waxa lagu qaban doonaa si hufan on time ah delivery leh dabcan waxaan rajaynaynaa wax badan inaan ka bedelno guud ahaanba printing service-ka oo dhan oo sanadkan waxa ku soo siyaadinay digital printing oo adduunku waxa weeye sanad kasta wuxuu noqonayaa update printing service-kuna markasta sanad kasta wuxuu la jaan qaadayaa update-kaas dunida waxa weeye ay leedahay marka ganacsigu waxa laga yaabaa inuu ka guuro waxa laga yaabaa printing-kii tooska in laga guuro digital printing loo guuro dabcan kambaniguna uu diyaarsan yahay inuu baahi kasta oo bulshadu ay leedahay iyo waqti kasta oo la joogo uu ka jawaabo baahida bulshada dhanka xayeysiisyada ganacsigooda iyo waxyaabaha printing service-ka la halmaala oo waxa weeye ay bulshada u baahan yihiin. sidaa darteed waxa ku boorinayaa nugaal ama Garowe cidda joogta in xafiiska weyn ay shirkadda booqato cidda kaleeto oo aan waxa weeye aan joogina ay lambarada shirkadda la xiriirto si dabcan waxa weeye markaas waxay u baahan yihiin ay si durbadiyo waxa weeye loogu jawaabo. shirkadda Alpha Print waxay inta badan caan ku tahay shaqaale hawlkara firfircoon khibrad u leh shaqada ay qabanayaan. second waxa weeye price jaban oo ka jaban magaalada ama printing-ka kaleeto. saddex waxa kamid ah quality-gaas waxa weeye qofka guarantee loo siiyo haday noqon lahayd 3D-ga haday noqon lahayd boorarka stiikarada iyo wax kasta buugaagta ganacsiga iyo wax kasta oo waxa weeye la halmaala printing system-ka ay u baahan yihiin. dabcan waa soo dhaweynaynaa waxaan u ballan qaadaynaa adeeg hufan oo insha Allah waxa rajeeyaa raali ay ka ahaan doonaan. dhanka kale maamulaha ayaa bulshada u sheegay in shirkaddu ay sameysay qiimo dhimis soo kaleeto waxaan u gaarsiinay maadaama sanad cusub lagu jiro 40% oo discount ah dhammaan waxa ay qaadanayaan oo dhan waa soo dhaweynaynaa waan ku faraxsanahay macaamiisheeda haddana shirkaddu macaamiil aad u fara badan ayay dabcan u shaqeysaa oo kasbata iyagoo macaamiishaas ay ku doortaan quality-googa iyo price-kooga iyo delivery-googa inahaas ayaan jeclahay inaan xogta guud oo shirkadda aan waxa weeye aan kaga jawaabo. sidoo kale waxaan mar labaad u mahadcelinayaa Somali Business oo runtii TV oo runtii ah TV wacyiga business-ka iyo la socda dabcan waxa weeye gaabkii u dhaxayn jiray ganacsatada iyo bulshada gaabkaas soo koobay ama buuxiyay waan hambalyeynaya waan dhiirigelinayaa.